فيديوغان waxaan rabaa inaan uga jawaabo su'aal in badan la isoo weydiiyo oo khaasatan rag ay isoo weydiiyeen oo aad muhiim ah su'aashaas waxay u dhacaysaa sidatan sheekho maxaa laga qaban karaa biyabax degdega ama wax Englishka loo yaqaan premature ejaculation sheekho maxaa laga qaban karaa fadlan la wadaag cilmigaaga aqoontaada iyo waxaad nugula talin kartid السلام عليكم وشا حكمت احمد كلو aad culus oo rag bes khaas u ah dumarka videogan wax badan kama faa'iido doontiin waxa waqtigiina isaga lumin Allah idin barkeeyo daawada videoyada kale oo muhiimka ah videogan sidoo kale kuma haboona caruurta fadlan hada caruurta sidii soo kayrtay hadaawan videogan marka horta premature ejaculation ama wax loo yaqaan biyabaxa degdega waxa rabaa inaad ogaatid waa cudur common ah ama cudur meel kasta rag meel kasta joogan adduunka community kasta ahaadaan ama qowmiyad kasta ka soo jeedaan waa dhibaato guud oo rag haysata marka sidee lagu ogaan karaa goormeel dhigi karaa uu ku haystaa ma nin 30 daqiiqo kadib wixii si tuurtay ma nin hal saac kadib wixii si tuurtay ma waa ninka hal daqiiqo ilaa 3 daqiiqo wax ka badan haduu hawsha wadi karin waa oo markuu 3 daqiiqo inta la gaarin barbar wata ila qalab dhinac u leeyahay taas way waxa la dhigi karaa way ku haysaa tan kale control ama awood uma leed inaad 3 daqiiqo ka badisid tan kale waxa kugu haysaa walwal iyo dhibaato maanta adiga dhan waa is ogtahay waxaad leedahay bahalkan leeno ama degdeg ama iga soo dhawin adiga dhan walwal bay ku haysaa calaamadahaas horta waa midda koowaad oo lagu gartaa marka horta dhibaatooyinka ay leedahay maxay tahay sheekh xigmad muxuu rabaa inuu uga hadlo aqoontan because sheekh xigmad iskama wadalo waa aqoontan in dadka lala wadaago dadka dhalinyarada lala wadaago maxay muhiim u tahay maxay tahay dhibaatooyinka keenta horta dhibaatooyinka koowaad oo keenta waxa weeye inay dhalmadii saamayso waxa laga yaabaa dad dhan uu isguursaday oo caruur ilaahay ka rajeynay inaysan caruurta heli karin sababtoo ah arintan ayaa dhacaysa premature ejaculation ka darteed sababtu maxay tahay horta labada xubin taranka marka ilaahay isugu talagalay waqti ayaa la isugu talagalay isla qaataan caamo badan la isdhaafsado kadib ay arintu dhamaato ya waqti dheer loo baahan laakiin hadduu ninkiiba caradii oo bahalka la yiraahdo cala daqarkii caradii oo qoyan ninkii birq leeyahay bahalkan la yiraahdo horta inay dhalmadii saamaysa laga yaaba sidoo kale waxaad ogaanaysaa inay saamayso qoysaska iyo xiriirada dadka dhaxeeya taasna waa mid ay rag badan oo caalamka geesiisa kala duwan ku nool ay uga cabteen maxaa yeelay haday saxaab bahalkan xabadii dumarkeeda la noolayd aysan ku faraxsanayn bahalkan la yiraahdo shaqada sariirta waa laga tagayaa ya ama waxaad soo guursatay xabad garooba xabad hore oo bahalkan liya bildaas uga soo dhigi jiray adiga hal daqiiqo bir xaga u dhacaysa waa laga tagayaa ya marka familada iyo qoysaska way dumisaa sababta uu shaxmad rabo uga hadlo inuu qoyskiina badbaadiyo raba I hope in rag kaliya daawanaya waa faanteen Soomaaliya kale waxay keentaa kalsooni darro iyo depression baa ninka ku keentaa taasu heer waxay gaarsiisaa ninka ragga uusan shaqadaas geli karin maxaa yeelay wuxuu ka baqayaa inay hal daqiiqo kadib waqtiga dhinac u dhaco ee laga tago marka waxay ku keenaysaa ninkii kalsooni darro iyo niyad jab fara badan oo noloshiisa inay sumcay keenaysaa taasuna waa sabab kale oo sheekh xigmad arintan uga hadlayo ya maadaama Soomaalida uusan dad cilmi ku badan uusan ahayn arrimahan aan aad looga hadlo sheekh xigmad ilaahay dartiisa rabaa inuu idin caawiyo marka horta maxaa sabab taas dan waqti dhibaatooyinkeeda maxaa sababaha maxaa keena horta midda koowaad oo keenta waxa weeye hormoonka jirkaaga oo isku dheelitirnayn hormoonka isku dheelitirnayn maxaa sababa cuntadii iyo exercise-kii oo isku ka dheelitirnayn baa keena haddaad hormoonkaaga waliba testosterone uu khaldan yahay oo suu ka saxnaan maxaa yeelay nin qof sonkor iyo saliid iyo bakti cunaa tahay exercise aan sameyn oo jawaan oo maanta dhan meel iska fadhiya baa tahay hormoonkaaga dib baa ku dhacay hormoonkaaga hadduu khaldan yahana jirkaaga khaladyo badan baa ka imaanaya oo ay ka mid tahay biyabaxa degdega waa isla faana Soomaa tan kale waxaa jira cudurro ku dhaca xubinka taranka iyo inta u dhow cudurro ku dhaca oo sababa ayaa jira sida prostate gland midka loo yaqaan cudurro ku dhaca way sababi karaan marka horta daawooyinka intaan ku gaarin wali waxaan si wadanaa waxyaabaha sabab sidoo kale waxaa keeni karta inaad tahay qof aan isku kalsoonayn waxaad ogtahay calool kuus inaad tahay waxaad ogtahay qof daalan inaad tahay markaas waxa isla alla maanta hal xabaan hel ka gaarsi kalsooni darro ma aamini kartid inaad qof dumar heshaba oo ala daqraad heshaba ma aamini kartid markaas birq degdeg adiga isku ma kalsooni darradaasuna way ku keenaysaa iyo inaadan hawshan aqoon oo aadan hawshan wax badan soo kil tan kale qof depression iyo haysta bahalkan la yiraahdo cudurrada maxaa loo yaqaan maskaxda qof waxa haday tahay taasuna way keentaa
qof uu sakacsigiisu ama xuminkiisu taranka califanaciisu uu si toos u istaagi karin hadaa tahay taasuna way ku keeni kartaa sidoo kale u keeni karto taas waxay tahay waxaad isleedahay ama kaadama markaas kala ka gaarsi baa isleedahay laakiin saas sax ma aha mid u dambaysa oo dad badan ku keenta waa siigada iyo daawashada filimaanta galmada marar badan waa kala hadla dadka TikTok ku xiran dhalinyarada waxaan idin iska daayay filimaanta galmada daawadaysa iyo siigada waa ku adduun sheegaysay waa ku aakhira sheegaysay iska daayay baan ya waxa ilaahay idinku talagalay inaad sameeysiin way ya ballanteena waa cali daqar hadda korna waa sheeg TikTok marka waxa la rabaa inaad shaqadii ilaahay kugu talagalay aad sameeysiigadan iyo waxaan gacanta dhabalka ku xogaysid way ka dilaysaa ya waxay kale oo keenaysaa filimaanta galmada ayada cudurro maskaxda laga qaadaa baalkan diyabaxa degdega ayada ku keenaysa maxaa yeelay maanta dhan wixii baad daawanaysaa baashi maanta dhan intay kaa saaran tahay adiga dhammaan ma taqaanid sida saxda ee qof bin aadama oo baal qof kula mida ma qabo sida qof dumar ah loola macaamilo ma taqaanid ya maxaa yeelay maanta dhan waxaad ku dhex nooshahay filimaanta galmada iyo gacantaada taqaana wax kale ma taqaanid degdeg intaad mid kala daawo ya marka horta waxa taasuna waa sababaha keena marka maxay tahay daaweynta ama maxaad ku dhimi kartaa horta midda koowaad oo ku dhimi kartid waa inaad iska daysid midda hadda ka hadlay oo filimaanta galmada iyo siigada inaad iska daysid way sababtii keentay waxa iska daysid baalkan daawadeedu waa midaas midda kale waa inaad cuntada iyo jiimka iska habaysid qof nafaqaysan oo cuntadiisu saxan tahay oo hormoonkiisu saxan yahay haddaad tahay ma kugu dhacayso ya 20 daqiiqo 30 daqiiqo 40 daqiiqo inta rabtaa isku celin kartaa cali daqarka cali fanxaagu ku istaagsanaanaya ama xurun taranka la dhaaba ya marka waxaad u baahan tahay inaad exercise garaysid waxaad u baahan tahay inaad jiimka aadid baa u baahan tahay midda kale waxaad u baahan tahay inaad bahalkan sidoo kale cuntadii haddaan weli ka waxaad iska joojinaysaa cuntada sonkortu iyo saliido ku badan tahay ayaad iska joojinaysaa midda koowaad oo kale oo ku dhimi karta waxa kamid ah markaad hawsha ku jirtid inaad isdajisid markaad hawsha ku jirtid ya oo cali daqarka jafaysid inaad baal isdajisid min degan noqoto ya biriq qadin maal isdaji ya maskaxda daji ya hadda koran salaan siyaaba jirta waxaad ka fakartaa meel kale maskaxdii meel kale aad ka fakaraysaa maanta meeqa shay baan gaday dukaankii iyo iskuulkii iyo nooc xisaabtii halkaas waxaad ka fakaraysaa halkaagana waa shubaysaa helilay maaligaagii bamba ya marka maskaxda isdaji war isdajinta mid ugu muhiimsan weerago midda kale oo keeni kartid waxa loo yaqaan bahalkan la yiraahdo inaad joojisid waa marka ka soo dhow yahay aad shaqada joojinaysaa waa hoob inaad meel ku qoranaysid ya inaad joojisid waa sa wadid u jafays marka afka soo dhow yahay baad joojinaysaa abaar baad break ka qaadanaysaa kadib waa bilaabaysaa misma waa isfahan soo ma taasuna waa I think English engine waxa sameeyna ya inaad isdajisid way midda tekniga saddexaad oo ama afraad baan ugu muhiimsan oo sameyn kartid waxa weeye inaad bahalkan liiraado markaad hawsha ku bahalkan liiraado aad wadid oo ka soo dhihin baad siibanaysaa ya alfan xaga la baxaysa boom ya waxay kala dheen anigu taas hadda koor ismeeday laakiin markaad siibatid madaxa la qabanaya dheer cabaarir 5 second amal madaxa aynaysa way bahalkan liiraado way dagaysaa meesha waa ka siibaysaa ya marka ni waxa malay rag wax badan ka faa'iideen waxyaabaha isku day inaad ka siibatid madaxa ka qabatid inaad meel kale ka fakartid inaad isdejisid baalkan inaad siigada iyo iska daysid iyo filmaanta galmada ku adduun iyo kharasaynin waxaan u malaynayaa inaad baalkan wax badan ka faa'iideen videogan haddaan ku baalkan liraado aan isla socon ya Sheekh Ahmed waxa aqoon badan iyo aqli badan baa ka faa'iidi doontiin wa alaykum asalaam